bismillaahi raxmaani raxiim waana wanaagsan saaxiibadayna ugu xiran oo halkani waa run sheeg TV waa bartayna YouTube-ka ku leenahay saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinku haynana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo bedelay wasiirka gaashaandhigga mid cusubna magacaabay laftigaran oo si cad runta ugu sheegay Roble tilmaamay inuusan ka qayb galeyn shirka Roble balse uu diyaar u yahay midka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baa ku saabsan ka badbaadinta dalka khalalaasa siyaasadeed ayaa la soo saaray qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadayna ugu xiran oo idin hayna fadlan hadii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanayna ina subscribe noo saadaan like na inuu dhiirigelisaan insha Allah saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen Ra'iisul Wasaare Roble ayaa bedelay wasiirkii gaashaandhigga mid cusubna uu magacaabay wareegta uu soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayuu wasiirka gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ugu magacaabay Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur jaamac hore u ah wasiirka cadaaladda Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale Mudane Xasan Xuseen Xaaji oo hore u ah wasiirka gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda Ra'iisul Wasaaraha ayaa faray labada wasiir ee la isku bedelayay sida ugu dhaqsiyaha badan xilalka kala wareegaan isbedelkan degdega uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa imaanaya xilli uu khilaaf kala dhaxeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lama oga wasiirka gaashaandhigga inuu aqbali doono isbedelka lagu sameeyay laftigaran ayaa si cad runta ugu sheegay Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu tilmaamay inuusan ka qayb galeyn ama uusan qayb ka ahayn shirka uu ku baaqay balse uu diyaar u yahay midka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis laftigaran ayaa si cad ula saftay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dagaal siyaasadeed oo cusub kala dhaxeeyo Ra'iisul Wasaare Roble laftigaran ayaa sheegay in ay Koonfur Galbeed aysan ka qayb gali doonin shirka uu ku baaqay Ra'iisul Wasaare Roble balse uu diyaar yahay inuu ka qayb galo shirka uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama qayb galayso shirka uu ilaamiyay Ra'iisul Wasaare Roble Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis xasan maxamed laftigaran waxa uu cadeynayaa inuusan ka qayb gali doonin shirka uu ilaamiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble go'aankan waxa uu ka dhashay kadib markii lagu xadgudubay madax banaanida guddiga xalinta khilaafaadka oo 7 xubnood laga saaray iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo shalay la kala qaybiyay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb gasho ama baaqa oo madaxweynaha si looga tashto sidii looga samata bixin lahaa geedi socodka doorashooyinka dalka dhinaca kale Jubbaland iyo Puntland ayaa la saftay Ra'iisul Wasaare Roble dowlad goboleedka Jubbaland ayaa noqotay tii labaad kadib Puntland si rasmi ah u taageerta Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble shirkii ku baaqay arrimaha doorashooyinka Jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay ku tiri dowladda Jubbaland mar walba waxay u diyaar u tahay dardargelinta hawlaha doorashooyinka oo fursad weyn u ah shacabka Soomaaliyeed in ay kaga baxaan xaaladda adag ee dalka ku jiro qoraalka ayaa intaas ku daray waxa meel wanaagsan maraya dadaalada ay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ku bilaabeen doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka oo si wanaagsan uga socda magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland waxay diyaar u tahay kana qayb galaysaa shirka golaha wada tashiga qaran arrimaha doorashooyinka ee garwadeenka uu ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo rajo weyn ay ka qabaan sida ay hadalka u dhigeen inay ka soo baxayaan waxtar ama go'aamo waxtar u leh shacabka Soomaaliyeed goorsiyo horeysay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri dowladda Puntland waxay cadeynaysaa inay diyaar u tahay qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka si waafaqsan heshiiskii golaha wada tashiga qaran ee gundhiga u yahay heshiiskii 17 September go'aanka Jubbaland iyo Puntland ayaa loo arkaa in ay jawaab u tahay abaabulka madaxweyne Farmaajo ee shirka lagu wiiqay midkii hore uu ilaamiyay Roble kaasi oo uu ku sheegay lagu saxayo jihaynta doorashooyinka ayna ka soo qayb galayaan golaha dowladda heer federaal dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne Farmaajo oo hore u wareejiyay hoggaanka arrimaha doorashooyinka amniga dalka ayaa go'aansaday in loo baahan yahay shakhsi samata bixiya dadka Soomaaliyeed maadaama Roble ku mashquulay dhaca hantida qaranka iyo isagoo isticmaalaya awood xad dhaaf ah si kastaba shirka oo dhawaan cilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa hadii uu qabsoomo waxa oo wax badan ka bedeli doona jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan dalka kaas oo ka dhashay hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi ayaa soo saaray baaq cusub oo ku saabsan ka badbaadinta dalka xaaladda amni
amni darro iyo qalalaasaha siyaasadeed oo halis gelin kara jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Cabdi Xaashi ayuu ku dalbaday in lagu dhawaaqo natiijada guud ee doorashada xubnaha aqalka sare si loo qabto fadhiga ugu horeeya aynan doortaan guddoon iyo guddi hoosaad si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Waxa uu sheegay Cabdi Xaashi in la dhameystiray doorashada xildhibaanada aqalka sare ayna muhiim tahay in si rasmi ah loogu dhawaaqo si ay gacan uga geystaan samata bixinta marxaladda adag ee dalku marayo. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa sidoo kale sheegay hadalkii ka soo yeeray gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ahaa mid aan sharciyad lahayn oo dalka u horseedi kara halis amni darro iyo dagaal la mid ah dhacdadii 25 Abriil 2021. Cabdi Xaashi ayaa sidoo kale cadeeyay in muddaxileedka madaxweynaha ay tahay 4 sano, sidaas darteedna uu muddaxileedkii madaxweyne Farmaajo u dhamaaday 7 February 2021. Guddiga doorashada gobolada Waqooyi ayaa shaaciyay 19 kursi ay doorashadooda qabanayaan. Guddiga maamulaya doorashada gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa maanta shaaciyay liiska 19 kursi ee dhawaan doorashadooda la qabanayo taasoo ka dhacaysa magaalada Muqdisho. 19 kursi waxa ku jira kuraas ay horey guddiga u shaaciyeen in doorashadooda la qabanayo, waxayna kala yihiin 19 kursi. Hoob 205 oo uu ku fadhiyo Sahra Cabdulqaadir Cabdiraxmaan, Hoob 246 oo uu ku fadhiyo Axmed Maxamed Jaamac, Hoob 240 oo ay ku fadhiso Suuri Diiriya Carab, Hoob 247 oo ay ku fadhiso Khadra Maxamed Dukaale, Hoob 245 oo ku fadhiyo Cabdiraxmaan Axmed Suge, Hoob 268 oo ku fadhiya Maxamed Cali Xagaa oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga, Hoob 269 oo ku fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Kaamil, Hoob 267 oo ku fadhiso Zaynab Maxamed Caamir, Hoob 259 oo ku fadhiyo Cabdiraxmaan Iidi Yoonis, Hoob 258 oo ku fadhiso Sahra Yuusuf Cige, Hoob 243 kursigan horey waxa isaga casilay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Maxamed Cumar Carte, Hoob 226 oo haatan ku fadhiyo Maxamed Ibraahim Cabdi, Hoob 263 oo ku fadhiyo Muuse Siciid Jaamac, Hoob 241 oo ku fadhiyo Cabdulqaadir Daahir Maxamuud, Hoob 210 oo hadda ku fadhiso Nuuriya Aadan Ciise, Hoob 207 oo ku fadhiyo Faysal Cumar Guule, Hoob 215 kursigan hadda waxa ku fadhiya Fatxi Siciid Xasan, Hoob 224 waxa kursigan hore ugu fadhiyay Saalax Axmed Jaamac, balse sanadkan waxa uu wareegay dhanka aqalka sare. Maalmaha soo socda ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashada qaar kamid kuraasta maanta la shaaciyay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan ku qabsoomay aalada fogaan araga maanta la yeeshay wakiilada beesha caalamka. War-saxaafadeed laga soo saaray kulanka ayaa lagu sheegay in ay ka wada hadleen xaaladda dalka, dardargelinta doorashada iyo shirka golaha wada tashiga qaran lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa u xaqiijiyay wakiilada beesha caalamka in ay shirka u furmaya ay diiradda ku saari doonaan ilaalinta hufnaanta doorashada iyo sixitaanka ku dhaqanka habraaca doorashada iyo soo saaridda jadwal ay ku caddahay waqtiga ay soo gabagabayso doorashada. wakiilada beesha caalamka ayaa si wadajir ah u bogaadiyay dadaalka ra'iisul wasaare Rooble ee la xiriira sidii doorashada ay noqon lahayd mid daahfuran oo lagu kalsoonaan karo. wakiilada waxay si gaar ah u soo dhaweeyeen kulamada wada tashiga ra'iisul wasaaruhu la yeelanaya midowga musharaxiinta, bulshada rayidka iyo beesha caalamka si ay u dhameeystaan talooyinkooda ku aadan hagaajinta hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada. Wahagaag saaxiibayaal, inta aan ku soo gabagabaynayna warka aad ka daawanaysaan Sheekh TV, fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa subscribe inoo saadaan like na inagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan insha Allah.